بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسن داوديال دمانتين بكنو سو دhowaada warkii caalamka warkii kooban ilaa hadda inta looga yeelay laba qof ayaa ku dhintay 10 kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray banaanbax shaqaaqo iyo xasuulooni darri abuuray oo maanta ka dhacay xaafadaha Masalaha Ubaale iyo calaamadaha ee koonfurta magaalada Hargeysa iyadoo dadweynaha xaafadaasi ku nool ay ka soo horjeesteen riig deegaankaasi ceel biyood looga qodayay oo sida la sheegay loo rareeyay dhinaca gobolka Awdal taliyaha guud ee ciidanka Booliiska Soomaaliland mudane Maxamed Saqari Dubad ayaa ka warbixiyay sababaha kalifay in ciidanka Booliisku ka hawlgalaan arintan Suldaan Maxamed Suldaan Cabdulqaadir ayaa isaguna telefishinka u sheegay inay xaraan tahay in goobta xaafada riiga looga qodayay iyadoo aanay wali hawshi dhamaanin goob kale loo raro isagoo Suldaan Maxamed Suldaan Cabdulqaadir ka digay cawaaqib xumada ka iman karta haddii ay xukuumaddu ku dhaqaaqdo talaabadan duqa caasimada Hargeysa injineer Xuseen Maxamuud Jiciir ayaa ku booriyay bulshada inay samraan isagoo oo tilmaamay in ay cilad farsamo awgeed looga rarayo goobtan daawadayaal intaasi waa warkii kooban haatan ku soo dhawaada isagii oo fidsan ilaa hadda inta looga yeelay laba qof ayaa ku dhintay 10 kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray banaanbax shaqaaqo iyo xasuulooni darri abuuray oo maanta ka dhacay xaafadaha Masalaha calaamadaha iyo Ubaale koonfurta magaalada Hargeysa iyadoo dadweynaha xaafadaasi ku dhaqan ay ka soo horjeesteen riig deegaankaasi ceel biyood loogu qodayay oo la sheegay in loo qaadayo dhinaca gobolka Awdal warkaasi oo faahfaahsan waxa noo haya wariyahayaga Maxamed Cabdi Ilig oo isagu ku sugnaa goob kamid ah goobaha ay rabshaduhu ka jireen halkan waxa weeyaan bartamaha suuqa magaalada Hargeysa waa bariiska koobaad ee caasimada Hargeysa sidoo kale halkaas waxa yaala faa'iido ay ku gubeen dadweynaha sidoo kale ka muujinaya riiga la sheegay in laga qaadayo Masalaha oo ah bariga magaalada Hargeysa taasoo ay ku cabanayaan in la biiliyo magaalada gobolkaasi Awdal dadweynaha iyo ciidamada booliisku waxay isku haystaan halkan muddo ku siman 3 saacadood iyadoo ilaa xalay la وهذا كسعودي مصلحة كواسي ولا شيء إلا دوني نحل جديد عرس سيد ريجا سلوجين لها دلاء بوليس كيان يقول جوابوها من دلوياني يدرين خد عن عندنا واحد من قواسويين عندما هذا بوليس من القاهرة حلو هذا السنة جا رصاصة وذكر عادي يقول على يضرب رصاصة البوليس كل جيان يضرب عاني تجين الله سيدا واحد فرسموين وحويا حرمتها برطمان سوق مقالة هرقيسة مدارات كنا أيها واحد سبسور عندما البوليس كان يدمينها وفتقا نحافظها لنا عبرية مقالة هرقيسة مدارات كان واحد وقص على برطمانها سوق قوات برطمانها بريج قوات مقالة هرقيسة واحد يدك البوليس كسور دي سيدي يدك ورا وسعوا لها المدارات كوجا هل كان واحد يدبني يدمينه فرق قواسي ودوني عندما البوليس كان بحاول عامل رأس على البوليس كان يدك واحد وكتير سكذا كلام قواسي وبوليس ما يرساس حلو استعمال رصاص تاسي وغير معقول ودعيسة وآدي أبو سعطة تدوينها يا درين كل واحد كم وتشنيان وهاي كعبنا يا وحويان ريق وشاقي إلا قاعد يوم لنا عم صلاة كاسي ولقيني مقالة الدلاء حرط دول كاسي أو كثر سن كاسي هو اللي يندك واحد وكسر شيء مدحون الرجال دول كاسي ما هنا إنه هالك كقاعده وإنه هالك لا بهناك جاي بيها نقول أي واحد وصل إلى لها في الرجال يندك اسمه 6 ساعات يسبقوا مدارات مركل ورسيق قالوا قبل أبلتي أبان سيدين يسمح منها ساكا مصلها إلا حالة تمام من السعودي ولا حاجات أي جليان مدح الدولة تاسو يدونيان إن الله قاضي ريجا سيالا مصلها وأهبريجا مقالة هرقيسة دولته اللي قد جاي وحنا لنا راقه الرياله ما قادت بيها ريكه هركشود نعبي سو عندنا دورنا ادينا راع
arkaysaan dadweyne badan ayaa waxay iskugu soo baxeen bartamaha suuqa magaalada Hargeysa halkaas oo dadweynaha ka cabanayaan riiga laga qaadiyo masallaha oo ah bariga magaalada Hargeysa ugu dhow madaarka dadweynaha ayaa dareenkooda waxa ay ku muujinayaan sida ugu soo horjeeda in laga qaado riiga iyagoo ay jirto biyo la'aan haddaba waxaa jirta waxa ay ku cabanayaan dadkani oo ay sheegayaan marka aad dhegeysato hareerahooda waxaa ka mid ah biyo la'aan ka jirto bariga magaalada Hargeysa taasi ay doonayaan in biyo laga soo saaro dawladuna ay u geysay riiga laga qado biyo laga soo saaro halkaasi riigagaas ayaa waxa dhacday in la doonayo in la bedelo loo bedelo dhinaca degmada Dila oo ka tirsan gobolkaasi Awdal arrintaas ayaa waxay ka caawinaysaa dadweyne badan haddaba iminka waxa jooga ciidamada booliska oo badan ayaa jooga bartanka suuqa kuwaas oo rasaas kala hortagaya dadweynahani dareenkooda ku muujinaya sida ay soo jeedaan arrintaasi haddaba waxa jirta dad ay ku dhacday xabadani waxa kale oo jirta inay xidhan yihiin wadooyinka waaweyn ee magaalada ee bartanka suuqa haddaba arrintan ayaa waxa jirta bal in aanu dadka mikrofoonka la dhex qaadnay dareenkooda iyo waxay ku cabanayaan waxay ka mudaarateen aan weydiinay waxaan ogeysiinaynaa haddii uu gartay in dila biyo la siiyo sallaxle iyo calaamada iyo maxamed googana halkuu geynaya daahir yaal آمين magaalada Salaxley la yiraahdo ilaa Hargeysa gobolkeeda geesta waxa loogu dhaamiyaa booyado 24 saacadood biyo ma haysano booyadaha loogu dhaamiyaa waanu bay hoobsanahay taangiga iyaga in la qaato raalli kamid الله الرحمن الرحيم waxaan tareenkaygu maanta ka hadlayaa hadii la oranayo hawlaha taagan maxaan ku raacay maanta mudaaraadka dhacaya dhibaatada dhacaysa waxa ka dhacaysa riiga halka riiga ka dhacaysa dad waa ku dhinteen dad dhibaato ma garanaysa gaadhay kale waxa weeye waxa soo dhan dawladda oo aqoon kicinaysa marka riigiyo ceelkii biyaha dadka aanu dhamaynin ay tiri soo bilaa la geynayaan dadku wada oomay dadku ilaahay baana wada abuurtay qaarna dabeeto waxaanu ka hadlaynaa aanu leenahay dawladda oo ku codsanaynaa iyada waxaan oo dhibaato waday inay ka joojiso ummadda iyo kicinta yaad ka tahay dadka dhexgelinaysa waxa laana waxaan qaban karin ba oo kasaba abaaskariga ku dhacaya iyada dadka kicinaysa waxa weeyaan dawladdu shicibka xadaantani dawladda waxa ka mid yihiin dawladdiina biyo keento weeyaan kii fadiilada loo soo siiyay ninku yiri waqaf baan u bixinaya ayaa hadana la doonayaa in dila la geeyo waxa weeyaan dawladda Soomaaliya waxay ku dhacday in shicibka la laayo xabad la dhaco dawladda weynada Soomaaliya tan waxa weeyaan hadii ay waxan ay shicibka ku sameeyay ka diin weydo imika tiraba dhowr iyo 10 qof baa laga ay ku dhacday xabadu mudaharadadan iyo mudaaharadii ka horeeyay waxa weeyaan shicibka ayaa la doonayaa in la laayo annagu waxa weeyaan hadda dareenkay waxaan ku cabireynaa hadii laga diin waayo tacabiyada magacayga waxa la Sadiq Maxamed Cumar waxaan ku tirsanahay deegaanka ama jiida koonfurta Hargeysa waxaan ka cabanaynaa riig loogu deeqay Jamhuuriyadda Soomaaliland oo nin Carabi ku deeqaysan loo sheegay ninkaas oo dabcan waqaf u bixiyay oo la doonayo macnaha marka inuu ka qado jiida Soomaaliland oo dhan riigaga meelaha looga baahan yahay ee biyalaantu ay ka jirto koonfurta Hargeysa ay ka mid ahayd meelaha ugu muhiimsan ee biyalaantu ay ka jirto shalay ayuunbaa si ku soo boodaa waliba goor dambe oo xalaya ayuunbaa waxaanu u maqalay in riigiiba la soo kaxeeyey sabab la'aan